بسم الله الرحمن الرحيم. وهاجاك dhegeystayaal imkana waxa ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad barnaamijyadii taariikhda Soomaalida aanu kaga warramaynay. daraawiishtii Ingiriisku waa uu ka adkaaday hase yeeshee iskuma soo dhaweynin maamulka Ingiriiska iyo dadweynaha. dareenkii uu sayidku ka booday ee dugsigii Dhaymoolo la odhan jiray ayaa weli jiray. sanadku markuu 1920 lix dugsi hoosaad oo la qorsheeyay ayaa waxa u socon waayeen markii la diiday cashuurtii xoolaha laga qaadi lahaa magaalada Burcana DC lagu dilay. hase yeeshee waqti dambe ayaa arday Soomaaliya loo diray wadanka Suudaan kuwaas oo markii dambe halgan u galay sidii dugsiye uga furmi lahaayeen dhulkii Ingiriisku uu ka talinayay. halgankaasi waxbarashada raggii hormoodka ka ahaa waxa ay ahaayeen Maxamuud Axmed Cali, Maxamed Shire Maxamed, Yuusuf Ismaaciil Gandhi, Cabdisalaam Xasan Suudani iyo Yuusuf Xaaji Aadan. haddaba bishii Sebtembar sanadkii 1930 ayaa kadib markii Talyaanigu ku adkaystay ayaa waxaa la dhammaystiray calaamadinta soodinta u dhaxaysay dhulka Soomaalida inta Talyaanigu xukumayay xilligaasi. Ingiriisku waxa dabeetana uu ku dhaqaaqay in la calaamadiyo soodinta kala qaybinaysay Ethiopia iyo iyaga dhulka Soomaalida oo ay qaybsadeen oo heshiiskaasuna u dhacay sanadkii 1897 si taasi loo meelmariyo guddi labada dhinac ka kooban ayaa walwaal meesha la yiraahdo tagtay bishii November sanadkii 1934. haddaba ilaa iyo intii heshiiskaasi kala qaybinaya qabaa'ilka Soomaaliyeed ay Talyaaniga iyo Ethiopia kala saxdeen sanadkii 1908 Talyaanigu waxa uu ku soo durkayay dhinaca Ethiopia dhulka Ogaadenia. waxaana la shaqeynayay waqtigaasi dad Soomaaliya oo ay ugu magac dheeraan ninka loo oran jiray Oldin oo ahaa Suldaan Ajuuraanka oo awood lahaa lacag iyo hubana Talyaanigu siiyay. Ethiopia la fahanteedu dhinaca Soomaalida ma taageero la'ayn. waxa ka mid ahaa Cumar Samataro oo Talyaaniga ku weeraray Ceelbuur sanadkii 1926 una gudbay dhinaca Ethiopia markii dambe. goobtaasi dabadeetana waxa isku dhacay ciidamadii Talyaanigu lahaa ee fadhiyay iyo qaar ka socday Ethiopia. Talyaaniga oo midaba ka diyaar garoobay isagu dhinaca Soomaalida ee uu fadhiyay dhinaca Eritrea. dagaalkii halkaasi ka bilowday waxa uu dhaliyay in Talyaanigu si buuxda uu qabsado Ethiopia bishii May 7 sanadkii 1936. dagaalkaasi waxa Talyaanigu ay kaga soo kabteen magaxumadii ka soo gaadhay dagaalkii Adwa ee Ethiopia kaga adkaatay sanadku markuu 1896. haddaba dareemadii xagga wadaninimada iyo fahamka gumaysigu waxa Soomaalida uu ku dhashay marka laga reebo dagaaladii sayidku uu galay ee Ingiriiska uu la galay iyo kuwii bayamaalku ay kula jireen Talyaaniga markii reer magaalnimadu ay bilaabantay oo la degay magaalooyinka ay ka mid tahay magaalada Muqdisho. meelahaasi waxa degay askartii ka soo laabatay ololihii Talyaanigu uu ku qaaday dalka Ethiopia. waqtiyadaasi waxa ka bilaabmay dhinaca koonfurta kulamo hoose hase yeeshee waxa Talyaanigu ay cadaadinayeen lacagta ay saareen wixii halis ku noqon kara maamulkooda. dhinaca Somaliland dhaqdhaqaaq ka lamid ah ayaa ka bilaabmay oo ay ka dambeeyeen xiriirkii cadan la lahaa iyo mujtamacyadii badmareenka ahaa ee deegaankaasi u dhashay. waxa kale oo weli ka sii jiray dareenkii halgankii daraawiishta. waxa dardar iyaguna sii galay dadkii wax ku soo bartay Suudaan iyo Cadan. dadkii baraarujinta sameynayay xilligaasi waxa ka mid ahaa Xaaji Faarax Omar oo ka mid ahaa shaqaalihii maamulka Ingiriiska. hase yeeshee markii dambe guubaabadiisii awgeed markii loo adkeysan waayay Ingiriisku uu masaafuriyay magaalada Cadan. markii uu Cadan tageen Xaajigu halkii ayuu ka sii waday isagoo jaraa'idka wax ku qoraya jiray araajina u soo gudbin jiray xukuumadda Ingiriiska uu ku sheegayo mowqifka iyo aragtida dadka Soomaalida.
sanadkii 1935 dad u badnaa ganacsata yaryar ayaa magaalooyinka Berbera, Burco iyo Hargeysa ka bilaabay urura siyaasi ah. waxaa xilligaasi soo baxay urur la odhan jiray SNS Somali National Society oo ujeedadiisu ahayd horumarinta waxbarashada iyo wax ka qabashada khilaafka qabaa'ilka. sanadkii 1937 shaqaalihii maamulka Ingiriiska ee Soomaalida ahaa ayaa urur samaystay la odhan jiray Somali Official Union. markii haddaba uu bilaabmay dagaalkii labaad ee adduunyada bishii August sanadkii 1940 ayaa Talyaanigu Ingiriiska ka qabsaday dhulka Somaliland oo Ingiriisku ka talinayay. hase yeeshee muddo 7 bilood oo kaliya ayuu haystay. Ingiriiska ayaa markaasi qabtay labada qaybeed oo Soomaalida markii dambe. waqtigaasi Ingiriisku haystay koonfurta Soomaaliya, dhaqdhaqaaqyo ayaa ka bilaabmay siyaasadeed kii ugu xooga roona uguna muhiimsana waxa waa ururkii la odhan jiray Somali Youth Club amaba SYC oo bishii May 13keedii 1943 laga furay magaalada Muqdisho kadib markii muddo 7 ah lagala xaajoonay furitaankiisa iyo dastuurkiisaba sarkaalkii xagga siyaasadda ugu qaabilsanaa Ingiriiska ee waqtigaasi halkaasi fadhiyay. naadigaasi waxa uu ka koobnaa 13 xubnood. dhiirigelinta ururkaasi raggii ugu xooga badnaa waxaa ka mid ahaa Cabdulqaadir Sakhaawadiin, Yaasiin Xaaji Cismaan Sharmaarke iyo Xaaji Maxamed Xuseen. 3 sano kadib waxaa rasmi ahaan xubno uga ahaa 25,000 oo qof. sanadkii 1947 waxaa naadigii SYC uu isu bedelay SYL, waxaana uu laama ku yeeshay Ogaden, Hawd, British Somaliland iyo Kenyaba. SYL waxa ay bilowday dugsiyo, waxaana la dhiirigeliyey fartii Cusmaaniyada oo yeelatay muhiimad wadaninimo. Awjaamac Cumar Ciise ayaa inooga warramaya. waa nimankii leegada curiyey 13 leegada ayaa la yiraahdaa. 13 nin weli kama maqal idaacadaha gobolladay ka kala yimaadeen. aan isweydiinay ma reer xamar bay ahaayeen, ma reer galbeed bay ahaayeen, ma reer bari bay ahaayeen. 3 nin waxay ahaayeen reer Banaadir, Cabdulqaadir Sakhaawadiin, Xaaji Maxamed Xuseen, Dheere Xaaji Dheere. 3daasu reer xamar bay ahaayeen, reer Banaadir baa la oran jiray. 4 waxay ahaayeen reer Mudug, Yaasiin Xaaji Cusmaan, Daahir Xaaji Cusmaan, Maxamed Xirsi Nuur, Cali Xasan Maxamuud. 4taasna waxay ahaayeen reer Mudug. 3na waxay ahaayeen Shabeellaha Dhexe, Jowhar iyo aagaas ayaan u jeedaaye. Maxamed Cali Nuur, Cismaan Geedi Raagi, Maxamed Faarax Hilowle. 3daasuna waxay ahaayeen Shabeellaha Dhexe. 3na waxay ahaayeen gobolka Shabeellaha Hoose, waa Maxamed Cusmaan Baarbe iyo Huudow Macal Cabdille. ninna wuxuu ahaa gobolka Togdheer, koonfurta magaalada Burco, Maxamed Xaaji Cabdullaahi Xayeesi. Ingiriiskay u tageen oo waxay yiraahdeen waxaad noo ogolaataa meel kilaab ah oo aanu ku sheekaysano waxna ku baranno. maxaa yeelay dawladdii militariga ahayd oo Ingiriiska ahayd ee markaa dhulka joogtay ayaa waxay doonaysay niman dhalinyaro ah oo wax la baro oo xafiisyada iyo ka shaqeeya. dhibaato kale ma kulmina waa u ogolaaday. marka waxay soo saareen 4 qodob oo waaweyn. qodobka ugu horeeya waxa markii horeba waa ugu jiray wax tacasub qabaliya inaan la sheegin, wax kala soocidi inay jirin, wax dariiqooyin ah oo la kala sheegtaa inay jirin, wixii ummadda kala kaxaynaya oo dhan oo tafarruq keenayana in la dagaalamo. xuquuqda Soomaalida meel ay joogtaba in la raadiyo. 5 Soomaali ee kala goobaan in la isu keeno. isticmaalku meel joogaba in laga hortago oo dhulka laga saaro. gobonnimo iyo istiqlaal si lagu gaaro in habkeed loo dagaalamo. 5 qodob ayay markii hor dhigeen. xilliyadaasi Ingiriisku uu wada talinayay Soomaalida ee dagaalkii labaad kadib Ethiopia waxa markaaba ay ku jirtay in loo soo celiyo reserve area dhulka la yiraahdo oo markaas heshiis ay kula gashay Ingiriiska sanadkii 1942 iyo 1944 heshiiskaasi oo Ingiriiskuna ogolaaday. Talyaaniga oo laga qabsaday dhulka koonfurta Soomaaliyana waxa uu ka shaqeynayay sidii uu isaguna ugu soo laaban lahaa halkaasi. sanadkii 1946 ayaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska Ernest Bevin waxa uu soo jeediyay in danta Soomaalidu ay ku jirto in wadan kaliya loo wada dhiibo. taladaasi hase yeeshee waxa ka soo horjeestay oo diiday Ethiopia. 3 wadan ee kale ee dagaalkii ku guuleysay iyaga la fahaantooda miisaan arintaas lama yeelanin. 4 wadan ee haddaba dagaalkii labaad ku guuleystay ayaa waxay guddoon ku gaareen in guddi ay u diraan wadamadii Talyaanigu haysan jiray ee laga qabsaday si loo soo ogaado dareenka ay qabaan dadkoodu. wadamadaas waxay ahaayeen Soomaaliya, Eritrea iyo Liibiya.
bishii janawari 6 sanadkii 1948 ayaa guddigaasi gaadhay magaalada muqdisho marka ay guddigu gaadheen magaalada muqdishona waxa ay la kulmeen kala qaybsanaan soomaalida dhexdeeda waxaana kuwa iyagu taageersanaan talyaaniga loo dhiiba ay la soo baxeen calamadii talyaaniga iyo halkudhegiya talyaaniga hase ahaatee guddi waxa ay codsadeen in SYSna loo ogolaado inay sameeyaan banaanbax ay ku eegaan dadku sida ay doonayaan 11 bishii Janaayo sanadkii 1948 hase ahaatee talyaanigii meesha joogay iyo kuwii taageersanaa ayaa iyaga oo hubaysan soo baxaysay ay u kala jebiyaan kulankii SYS ay qabanqaabinaysay halkaasi dabadeed waxa ka dhacay dagaal ay ku dhinteen ilaa iyo 50 qof oo Talyaani sida ku qoran buugga la yiraahdo A Modern History of Somalia oo qoray professorka la yiraahdo I.M. Lewis haddaba Cabdiqaadir Maxamed Aadan oo soobe ku magac dheer oo kamid ahaa ragga muddada dheer iyo ku jiray siyaasadda Soomaalida ayaanu weydiinay kuwa Talyaaniga doonayay waxa barnaamijkoodu ahaa January 1948 waadid qodon iyo saddex Talyaani lagu dilay waadid dhibaato ka dhacday halkii waa la noqday maxay dhibaatadu ka dhacday la isku dilay waxa la isku dilay groupkii watay Talyaaniga iyo group leegada oo qeylinayso oo lama suurtooyso yaa iska hor yimaadeen marka qoladan Talyaaniga wadata yahayn horta markaas conference la dhigay waa kuwa adeeshay hasaabti kala isu tagtay ahayn maxay doonayeen waxay doonayeen Talyaani doonayeen tan waxay ku doonayeen muddo 3 sano inuu sii hayo inuu yaraan al aqal yani ay la noqdo 30 sano kadib gobonimada la siiyo saasay wateen kontankii yaa waxa la gooyay November inuu Talyaani meesha joogo 10 sano istiqlaal dadkan gaarsiiyo maxaa keenay in Talyaaniga loo dhiibo markii la warsaday liida Talyaani rabtaan leega waxay warsatay 4 power waxay warsatay 4 power in iyagu hayaan Talyaani wuxuu sameeyay asagana lobbying in loo dhiibo wuxuu ka sameeyay United Nations gudaheeda markii 10 sano loo dhiibay Cabdiqaadir Talyaaniga leeyay Soomaaliya adiga haynaya ma jireen ururo iyagu markaasi kuwan hore ee aad sheegtay mooje kuwa markaasi dhashay oo kala qaybsamay oo markaa SYS laftirkoodu ka soo horjeestay markaas aniga aan joogo SYL yaan haylaan condition kan anaga dhalinyar nin wax garanay dhab SYL buu ahaa dadka dhan SYL bay hayeen markii Talyaaniga loo dhiibay 1947 March xisbiya digil inuu la aasasay digil mafrihi marka qabiilkii xaga inta usoo tagtay qabiil ee hore wax kaliya qabiil aan sheeganaynin oo ummad isu keenay oo Soomaali isu keenay oo halka dhigay SYL waatay waxa la bilaabay in lagu kala ordo istiqlaalki SYL waxa ka soo daahiray aniga tayd aragtadayda qabiilnimo aniga waxaan ahaa ragga u horeeyay oo SYL ka tagay sanadkii 1951 bishii November haddaba sanadkii 1949 ayaa golihii guud ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa muddo 10 sanadood u xil saaray Talyaanigu inuu xukumo koonfurta Soomaaliya 1948 ayaa Ingiriisku isna go'aan ku gaadhay in dhulka Soomaalida ee maanta ka tirsan Ethiopia uu ku wareejiyo sidii ay dhigeen heshiisyadii labada dhinac dhex maray sanadihii 1942 iyo 1944 go'aankaasi oo jigjiga laga dhawaaqay waxa ka dhashay rabshadahaasi oo ay ku dhinteen dad tiradooda ay gaadhiso ilaa 25 qof oo Soomaaliya hase yeeshee 23 bishii September sanadkii 1948 ayuu Ingiriisku Ethiopia ku wareejiyay dhulkaasi 29 November 1954 ayaa Ingiriisku heshiis cusub uu la galay Ethiopia oo kaga baxay dhulka la oran jiray Hawd iyo Reservoir goorma ayaa haddaba Ingiriisku u sheegay dadka Soomaalida ah inuu bixiyay Hawd iyo Reservoir ama dadka Soomaalida ay ogaadeen waa kan Umar Cabdiqaalib sanadku markuu ahaa 1954 xisbiga kaliya siyaasiga markaa jira wuxuu ahaa SNL oo markii u horeysay lagu bilaabay SNS Somali National Society markii dambena isu bedelay Somali National League sheekh waa xarunta tacliinta
markaa lagu barbaarinayey madaxdii maalintaasi berrito la odhan karay waxaanu markaa dawladdii ingiriiskeena xukumaysa weydiisanay inaanu soo barano dalkayaga that means somaliland waanu naqaane howd and reserved area ayaanu doonaynaa inaanu soo barano aan ku nidhi hanaloo diyaariyo baabuuro iyo sidii aan u tegi lahayn waayahay baa la yidhi markaa dabato meelihii reserved area markaa ka mid ahaa ku toosnaa burco iyo kuwii hargeysa ku toosnaa iyo kuwii boorama ku toosnaa ayaanu soo wada maray walwaal wardheer qarbidahare dhagax buur markaanu dee soo dhamaysanay ayaanu dib usoo noqonay milmil awaare waxaanu kusoo noqonay hargeysa dawladdii markaa somaliland xukumaysa waxay tiri report soo qora waanu soo qoray report kolka hore waxaanu ka warramaynay uun maxaan ku dhahdaa meelihii aanu tagnay iyo sidii naloo soo dhaweeyey waxyaala caynkaasa laakiin saddex su-aalood ayaanu ku khatinay waxaanu nidhi maxay dawladdu iskuullo uga samayn weyday meelihii aanu soo maray inta ay dhowr intay kasoo kaxeeyaan dhagax buur iyo awaare iyo meelahaas ay amba sheekh amba boorama u keenayaan maxay iskuulle halkaa uga samayn weyday su-aasha labaad waxay ahayd waxaanu aragnay saraakiil iyo askar etoobiya ah maxay meesha ka qabanayeen ila waa dalkayagiye su-aasha saddexaad waxay ahayd macnaha reserved area waa maxay hawd garanay oo hawd marka hargeysa la joogo macnahu waa koonfurta hargeysa laakiin reserved area maxay tahay maxay reserved u tahay nimankii markii ay dawladdu governorkii isticmaalka ahaa ee dawladda mustacmirka ahaa yani wakiilka ahaa markuu warqadii loo geeyey markiiba la dambay la xidhiidheen waxay yidhaahdeen nimankii macallimiinta ahaa waxay soo mareen reserved area dabeet waxayna weydiiyeen why macnuhu waa maxay reserved area maxay reserved u tahay su-aalihii aan weydiinayn o dhan bay u sheegeen markiiba dawladda ingiriisku way soo jawaabtay waxay tidhi u sheega waktigii baa la gaadhay ay waajibi noqotay in loo sheego heshiis sir ah oo inaga dhexeeyey haddaynu ingiriis nahay iyo dawladda ethiopia oo la kala saxeixday 1944 taasoo tix raacaysay heshiis kale oo 1897 la kala saxeixday markii xuduudda africa la sameynayay 6 bilood ayay arrintii qaadatay intii yani ay isu diyaarinayeen say noogu sheegaan maalintii dambe ayaa barasaabka naftiisu ku dhawaaqay 28 February 1955 February 55 ayaa lagu dhawaaqo la yidhi dhulkaa la yidhaahdo hawdiya reserved area malihidin Ethiopia ayaanu ku wareejinay intaas markay dhacday magaalo kasta waxa laga sameeyey mudaaharaad ninkii hadlaabana uu ku halqabsaday wuxuu yidhi ingiriiskuuna khiyaameeyey waxa dhacday dadkii Soomaaliyeed ee shacbigii inuu kacay markaas waxa la diyaariyay wafdi la yidhi lana loo diro waxa ay kala ahaayeen Sultan Abdurrahman Sultan Diiriye Allah yarxamo Sultan Abdullah Sultan Diiriye Allah yarxamo Sultan Biixi Foley rahimahullah Michael Mariano Abdurrahman Ali Dubbe ilaahay uu naxariisto ayaa lana loo diray sidii aan horeba u sheegnay 29 bishii November sanadkii 1954 ayaa Ingiriisku saxiixay heshiis cusub oo la galay Ethiopia oo uu kaga soo baxay hawd iyo reserve area dhulkii la oran jiray mudaharaadyo ballaaran ayaa ka dhacay Somaliland oo lagu diidan yahay dhulka Ingiriisku uu wareejiyay waxaana markiiba la qaban qaabiyay wufuud in loo diro London iyo New York Abril sanadku markuu ahaa 1956 ayaa wafdi ka socda guddiga baarlamaanka Ingiriiska ugu qaabilsan xiriirka dibaddu ay tageen Ethiopia si ay ugala soo xaajoodaan Ethiopia dhulka la isku haystay ee Soomaalida oo ay doonayeen inay dib uga iibsadaan hase ahaatee uma suuroobin 25 bishii August sanadkii 1956 ayaa boqorkii la oran jiray Haile Selassie ee Ethiopia markaasi ka talinayay hadal uu ka jeediyay magaalada la yiraahdo Qabri Dahare waxaana uu ku sheegay in Soomaalidu ay ka mid yihiin qoyska weyn ee Ethiopia wahagaag dhegeystayaal intaasna waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii saddexaad oo ka mid ah barnaamijyadii xiriirka ee aanu kaga hadlaynay taariikhda Soomaalida